السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada idaylahantiin dhammaantiin asxaabta ku xidhan kaabe technology and language. aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan noola socotaan meel kasta ku sugan tihiin. kusoo dhawaada barashada luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan. waa casharadu ay yar kala go'een, waa ka cudur daaranaynaa insha Allah, laakiin waxaan ballan qaadaynaa in casharadii ay dib aan u wada bilaabi doono idaylahantood iyo dhammaantood casharadii qaybihii kala duwanaa, hadday tahay grammarkii, hadday tahay qaybtii dialogueska iyo topicskii, idaylahantood inaanu insha Allah dib u soo wada celin doono ayaan insha Allah ku hanweynahay. sidoo kale waxaan ogeysiinaynaa bulshada nagu xidhan page-ka kala duwan ku xidhan sida YouTube, Instagram iyo Facebook inaanu bilaabayno grammar 8 parts of speech iyo all grammarka oo dhan ee luqadda Englishka inagoo raacayna syllabuska UK. haddii aad xiiseynayso ama danaynayso waxaan bilaabi doonaa koorso cusub oo waxa weeyaan syllabuska waxa weeyaan UK ku bixi doonta oo insha Allah aad iyo aad looga baraandigay oo ku saabsan barashada luqadda Englishka qaybaheeda naxwaha ah. sidoo kale waxaan ogeysiinaynaa bulshada nagu xidhan kaabe technology and language iyo Facebook iyo YouTube, Instagram naga xidhan insha Allah inaanu bixino online courses English ah. sidoo kale ay diyaar yihiin sidoo kale bisha tan aan qaadanayno arday kala duwan oo fasal cusub oo waxa weeyaan iminka la bilaabi doono insha Allah. marka aad jeceshahay ama danaynayso fadlan waxa weeyaan waad nagu soo biiri kartaa oo waad nala soo xiriiri kartaa. waad ku mahadsan tahay daawashadaada ee soo dhawow mar kale. magacaygu waa Sharmaarka Caraale Jaamac. alaaba waxaan idinla socodsiiyaa barashada luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan. bulshada nagu xidhan iyo asxaabta nagu xidhan aadka iyo aadka u qaaliga ah waxaan idinka codsanayaa inaa waxa weeyaan cashka like garaysaan, sidoo kale waxa weeyaan Facebook, Instagramna aan naga soo follow garaysaan. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka aad daawanaysaan. asxaabtiinana la wadaaga, sidoo kale channelkana subscribe inoogu sameeya. soo dhawaada mar kale. mowduuca waan idinku soo talagalay waxa la yiraahdaa topic mowduuca bood ku saabsan refugees, qaxootiga ku saabsan. mowduuc hore ayaan ka soo hadalnay oo ku saabsan waxa weeyaan qaxootiga. sidoo kale caawana waxaan rabnaa inaan mowduuc kale ka hadalno oo aan ku kala dhigayno in badan aan ku kala saarayno refugees qaxootiga, maadaama mowduuc horena aan ka soo hadalnay. kana waxa weeyaan waa mowduuc kale oo isna ku saabsan waxa weeyaan refugee qaxootiga, maadaama aad iyo aad qaxootiga Soomaalida aad iyo aad u badan yahay meel kasta uu joogo. insha Allah waxaan rabnaa marka mowduucan inaan waxa weeyaan aan ku soo qaadano refugees qaxootiga. waxa weeyaan waa lesson 90 cashka waxa weeyaan 9aad weeye buuggeena English and Dialogue book 2 advanced and topics and dialogues kala duwan oo ardaydu ay iskaga dhisayaan waxa weeyaan luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan. so intaan bilaabin waxaan ka codsanayaa mar kale inaad waxa weeyaan channelka subscribe ku samayso, mowduucana aad like garayso. ood ku mahadsan tahay daawashada mowduuca aad daawanayso. asxaabtaada kalena la wadaag wixii information aad qabto waxa weeyaan commentiga nagu la wadaag. waa isla bilaabaynaa. way in the name of Allah, magaca Ilaah ayaan ku bilaabayaa. in the name of Allah, magaca Ilaah ayaan ku bilaabayaa. most compassionate, naxariista guud, naxariista gaal iyo muslim baa ugu naxariista. and the most merciful, isla markaana naxariista gaarka ee mu'miniinta iyo dadka islaamka ee mu'miniinta ugu naxariista. bismillaahir rahmaanir rahiim. in the name of Allah, magaca Ilaah ayaan ku bilaabayaa. most compassionate, naxariista guud, naxariista. and the most merciful, iyo naxariista gaar ahaaneed ba naxariista. all praise, hufnaan iyo ammaan oo dhan. praise, hufnaan iyo ammaan oo dhan. isaydu waxay u sugnaatay u waajibtay to Allah, Ilaahay ayay u sugnaatay u waajibtay. alone, keligii ayay u sugnaatay. all praise, hufnaan iyo ammaan oo dhan. isaydu waxay u waajibtay oo iskale hufnaan iyo ammaan oo dhan, mahad oo dhan waxay u sugnaatay Allah, Ilaahay ayay u sugnaatay. alone, keligii ayay u sugnaatay. who, allahaasoo protected me, iga difaacay oo iga ilaaliyay, me aniga, and you iyo weliba adiga, from mischief of cursed Satan, shaydaanka la nacladay ee la dheereeyay. from mischief of cursed Satan, shaydaanka la nacladay ee la dheereeyay. and made me igana dhigay
rational qof macquul ah iga dhigay oo miyir qaba oo caadi oo dhammaystiran rational qof macquula iga dhigay yacni aan kala dhinayn oo aan waxa weeyaan waalnayn adigana kaa dhigay anigana iga dhigay today maanta ay anigu weyntii waxaan doonayaa to talk inaan ka hadlo about wax ku saabsan refugees qaxootiga refugees qaxooti waxaan uga hadli doonaa profoundly si qoto dheera an iyo weliba explicitly si cad ayaan uga hadli doonaa today maanta ay weyntii waxaan doonayaa to talk inaan ka hadlo about wax ku saabsan refugees qaxooti profoundly si qoto dheera unexplicitly iyo weliba si cad refugee muxuu yahay qofka refugeega what's the refugee waa maxay refugee qaxooti waa maxay refugee qaxootigu is a person waa qof who qofkaasoo si ka raadiya shelter hoy gabaad or ama protection difaac from the danger khatar or ama trouble dib una raadsada magangeliyo iyo hooyaad u raadsada to a foreign country wadan qalaad ama wadan ajnabi u raadsada refugee qaxooti is a person waa qofka who kaasoo si ka raadiya shelter hoy or ama protection difaac from danger khatar or ama trouble dib to una raadsada foreign country wadan ajnabi u raadsada today maanta there waxaa jira milyuunaad of refugees oo qaxooti ah ayaa jira oo scattered ku firdhimay ama ku firirsan all of the world adduunyada oo dhan ku firirsan oo adduunyada ku kala firdhay ayaa jira today maanta there waxaa jira milyuunaad of refugees oo qaxooti ah scattered oo ku kala firdhimay ama ku kala firirsan all of the world adduunyada oo dhan ku firirsan the major causes sababaha ugu waaweyn ee sababay keenay in dadku ay noqdaan maxay refugees qaxooti sababaha ugu waaweyn ee sababa waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa qaxootinimada ama in refugee uu qofku noqdo the major causes sababaha ugu waaweyn causes waa sababo majorna waa ugu waaweyn ka sababaha ugu waaweyn of refugees ee qaxootigu are wars dagaalo meeshaas ka dhacaya ayaa dadku qaxooti ay ku noqdaan sidoo kale waxaa sababa droughts abaaro meeshaas ka dhaca droughts abaaro operations dulmiyo torture jirdil despotism amar ku taaglayn or tyranny amase amar ku taaglayn ama agajuglayn tyranny agajuglayn amar ku taaglayn earthquakes dhulgariiro oo meeshaas ka dhaca floods iyo weliba daadad and many other catastrophes iyo weliba dhibaatooyin kale oo aad iyo aad u fara badan the major causes dhibaatooyinka ugu waaweyn of refugee ee qaxootiga are wars dagaalada droughts abaaraha operations dulmiyada torture jirdilka operations dulmiyada or tyranny iyo weliba dulmiyada waa isku mid labada erey earthquakes dhulgariirka floods daadadka and many other catastrophes iyo dhibaatooyin kale oo aad iyo aad u fara badan the civil war dagaalka sokeeye in Soomaaliya ee Soomaaliya ayaa renderer ka dhigay mani Somalis in Soomaali badani to be ay noqdaan refugees qaxooti iyaga oo dadka ahi faled waxay u carareen to abroad qurbaha ayay u carareen or ama overseas dibadaha ayay u carareen abroad overseas waa isku mid by the skin of teeth iyagoo aan waxba aan haysanin wax allaale waxay cunaan iyagoo aansan haysanin by the skin of teeth iyagoo wax allaale waxay cunaan aan haysan wiinaga always badiyaaba take back waxa inaga yaabiya by the news warka ayaa inaga yaabiya markaan wararka dhageysanayno ayaa wararka ayaa inaga yaabiya that some Somalis qaar kamida Soomaalida ama qayb kamida Soomaalida perished inay ku dhamaadeen oo ay ku baabeen in another country wadamo kale inay ku baabeen oo ay ku madheen perished inay ku baabeen oo ay ku dhamaadeen in another country wadamo kale ay ku baabeen it is a miserable aad iyo aad ayay u xun tahay to flee inaad ka cararto ereyga flee waxa weeye waa present of fled
present fledna waxa weeye present of past marka waa cararid tanna waa pastigeedii tanna waa presentigeedii marka it is miserable aad iyo aad ayay u xun tahay to flee inaad ka cararto from your country wadankaaga inaad ka cararto to another country oo aad u cararto wadan kale ama wadan qalaad aad u cararto UN qaramada midoobay United Kingdom United Nation qaramada midoobay depends waxay dalbataa convene inay isugu yeedho ay isu keento ereyga convene isu keenid inay isugu yeedho isu keento ee conference shir ay isugu yeedho steer clear of war shirkaasoo isagu si cad u wadaya dagaalka u sii wadaya steer kaasoo u wadaya clear si cad u wadaya of wars dagaalada si cad u wadaya whenever markasta ama xilli kasta there is uu jiro divergency kala duwanaansho between u dhaxeeya two groups laba kooxood u dhaxeeya or ama waxa weeyaan two countries laba wadan u dhaxeeya macnaha UN qaramada midoobay depends waxa dalbasho waxay dalbataa inay dadka isu keento markasta oo uu jiro waxa weeyaan khilaafaad ama dagaalo ama dib ama kala duwanaansho u dhaxeeya laba wadan ama laba kooxood labadoodii kooxood ayay u yeedhaa oo dalbataa inay shir isugu keento kaasoo ay ku dhamaynayso ama ku xalinayso waxa weeyaan dagaalka laakiin uu ka sii daraa oo si cad ayaa shirkaasi uu u wadaya dagaalka oo yaani marka la isugu yeero iyagoon baa la isku diraya Soomaalida intay la isugu yeero ayaa iyagoon waxa weeyaan laga dhex shaqeynaya marka UN qaramada midoobay depends waxa ay dalbataa ee convene inay isugu yeedho ee conference shir ay isugu yeedho steer halkii clear of war kaasoo si cad u wadaya dagaalka steer waa waditaan weeye clearna waa si cad of wars dagaalada u wadaya ever markasta ama xilli kasta there is uu jiro divergency kala duwanaansho uu jiro between u dhaxeeya two groups laba kooxood or ama two countries laba wadan but laakiinse one side hal dhinac ayaa always badiyaaba turns down arrintaa diida oo dhulka ku jeeda ama kasoo horjeesta maxay kasoo horjeesanayaan that depends dalbashada ay dalbatay qaramada midoobay advanced wuxuuna kordhiyaa dhibaatada iyo dhibta ayuu kordhiyaa instead bedelkii uu ka qayb qaadan lahaa shirka iyo wada tashiga the world adduunyadu is now accelerating hadda ayay aad iyo aad u siyaadinaysaa accelerating siyaadin aad iyo aad ayay u siyaadinaysaa their effort dadaalkooda ayay aad iyo aad u siyaadinayaan dadaalkaas oo ay maxay ugu jiraan to end ay ku dhamaynayaan civil strife khilaafaadka bulshada rayidka ay ku dhamaynayaan civil strife khilaafaadka iyo arbushaadaha soo kala dhaxgala bulshada ay ku dhamaynayaan and we Somalis hadii aan nahay inagu Soomaali aan nahay are solemnly waxaan si dhab ah waxaan si run ah oo really ah asking aan u weydiisanayna for the evacuation in lagu soo qaxiyo oo dib loogu soo la soo qaxiyo of Somalis dadka Soomaaliyeed Somali refugees qaxootiyada Soomaaliyeed to their motherland ama to their country wadankooda in dib loogu soo qaxiyo oo dib loogu soo celiyo yaani ayaan waxa weeyaan si dhab ah aan u weydiisanaynaa maadaama adduunyadu ay sii siyaadinayso waxa weeyaan dadaalkooda ay leeyihiin waxaan ku dhamaynaynaa ama ku soo xalinaynaa ku soo afmeeraynaa civil strife waxa weeyaan khilaafaadka bulshada rayidka marka we are Somalis hadii aan nahay anaga Soomaali salamli si dhab ah askan ayaan u weydiisanaynaa for the evacuation in dib loogu soo celiyo of Somali refugees qaxootiyada Soomaaliyeed ee adduunyada ku kala firdhimay to their country wadankooda in dib loogu soo celiyo ayaan waxa weeyaan aan weydiisanaynaa okay dib aan ugu celino waxaan leenahay in the name of Allah the most compassionate and the most merciful. All praise is due to Allah alone, who protected me from mischief of cancer Satan and made me rational. Today I wanted to talk about refugee profoundly and explicitly. Refugee is a person who seeks shelter or protection from a danger or trouble to
a foreign country. Today there are millions of refugees scattered all over the world. The major causes of refugee are wars, droughts, oppressions, torture, despotism, tyranny, earthquakes, floods, and many other catastrophes. The civil war of Somalia rendered many Somalis to be a refugee. They fled to abroad or overseas by the skin of teeth. We are always taken back by the news that some Somalis perished in another country. It is miserable to flee from your country to another country. UN depends to convene a conference is still clear of wars. Whenever there is a divergence between two groups or two countries, but one side always turns down that depends on advance instead. The civil war, the world is now accelerating their effort to end civil strife, and we are Somalis are solemnly asking for the evacuation of Somali refugees to their country. In the name of Allah, haddaan mar dib ugu celiyo insha Allah waan rajeynaya inaad kusoo celceshan doonto. In the name of Allah, magaca ilaah baan ku bilaabayaa markaa ila soco insha Allah waxyaabihii ku dhaafay يعني أما هل كانت فهم ويدي إن شاء الله إن قريبتنا تكون تعدي كرتا in the name of Allah مقع إله بنكون بالعبا يا most compassionate نحريستا good نحريستا and the most merciful يا نحريستا كارهانيت با all price of ناري أمان ودمي سيدو وحي واجبتي ويسوغناتي مهاد ودمي تو الله إله يالله كليجي هو الله so protected me إيجا إلاليي from mischief of cancer satan شيطان كلنا على ذي اللي and made me إيجانا ديجي رشنا الغف معقولة today مانتا I went وحندوني to talk in ka hadlo about wax ku saabsan refugees qaxootiga profoundly si qoto dheer aan explicitly iyo waliba si cad ee refugee qaxootigu isee person waa qof uu kaaso si ka raadiya shelter hoy or protection ama difaac from the danger khatarta uu isaga dhigayo or ama trouble dibka tu una raadsada ee foreign country wadan qalaad ama wadan ajnabi there are waxa jira millions of refugees milyoonaad qaxooti ah oo waxa weeyaan Soomaaliya oo scattered ku kala firdhamay oo ku kala yaacsan all over the world adduunyada oo dhan the major causes sababaha ugu waaweyn of refugees ee qaxootigu are wars dagaalada droughts abaaraha operations dulmiga torture jirdilka despotism amar ku taaglaynta and tyranny iyo waliba hanjabaadaha iyo waliba amar ku taaglaynta iyo dhibka earthquakes and dhulgariiryada floods daadadka and many other catastrophes iyo waliba dhibaatooyin kale oo aad u fara badan the civil war dagaalka sokeeyay Soomaaliya ayaa rendered ka dhigay mani Soomaali badan to be inay noqdaan refugees qaxooti iyagu falad waxay u carareen to abroad dibadaha ayay u carareen overseas ama qurbaha ayay u carareen by the skin of teeth iyaga aan waxba haysanin we are always take back waxa inta badan inaga yaabiya by the news wararka markaan daawano ayaan la yaabnaa that some Somalis in qaar kamid ah Soomaalida birishar ay ku burbureen oo ay ku baabeen oo ku dhamaadeen in another country wadamo kale it is a miserable aad ayay u xun tahay to flee inaad ka cararto from your country wadankaagi inaad ka cararto oo tu aad u cararto another country wadan kale UN qaramada midoobay depends waxa ay dalbataa ee convene inay isu keento ay isugu yeedho ee conference shir inay isugu yeedho still clear of war kaasoo si cad u wadaya oo aynan inagu fahansanayn dagaalka u wadaya still u wadaya clear si cad of wars dagaalada u wadaya si siyaadinaya yani whenever markasta there is meel ka jiro divergence kala duwanaansho between u dhaxeeya two groups laba kooxood oo ama two countries laba wadan oo wuxuu isku haya but laakiinse one side hal dhinac ayaa always badiyaba turns down dhulka ku jiida ama ka soo horjeesta that depends dalbashada ay dalbatay waxa weeyaan qaramada midoobay an advance sidoo kale wuxuu sii kordhiyaa dhibka ayuu sii kordhiyaa dalbashadaasi instead bedelkii uu ka qaadan lahaa waxa weeyaan shirka iyo wada tashiga the world adduunyadu is now hadda accelerating waxay sii siyaadinaysaa accelerate waxa la yiraahdaa shaleeraha ama brake ama lewarka gaariga marka haddii aad taabato wixii uu sii siyaadaya gaarigu xoog ayuu soconaya marka accelerating waxay sii siyaadinaysaa oo sii kordhinaysaa their effort dadaalkooda ayay sii kordhinayaan to end ay leeyihiin waxaan ku dhammaynaynaa civil strife khilaafaadka dagaalada
iyo weliba arbushaadaha bulshada soo kala dhexgala bulsho kasta. We are Somalis, haddii aan nahay anagu Soomaali, we are solemnly waxaan si dhab ah asking for aan u weydiisanaynaa qaramada midoobay laftirkeeda iyo ciddii ay khusaysoba the evacuation in waxa weeyaan return back la sameeyo dadka yagii dib loo noogu soo celiyo of Somalis refugee qaxootiyadii Soomaaliyeed to their country wadankooda dib loogu soo celiyo. maasha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ugu dambeyn halkan aad ila soo gaadhay. fadlan haddaad mowduucan aad wax ka faa'iiday waxa weeyaan fadlan mowduuca la galay asxaabtaada kalena la wadaag, sidoo kale channelkana noo subscribe garay, Facebook iyo Instagramna naga soo follow garay. maasha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay mowduuca inaad wax badan aad ka faa'iiday. ayaan rajaynaynaa kuwan iyo kuwa ka qaalisan ayaan waxa weeyaan soo gelin doonaa. marka insha Allah waad nala socon doontaa haddii Allah uu dilo ogolaado. nagu soo biir channelka ku soo biir, wax badan ayaad naga faa'iidi doontaa intaan mowduuca xiga isugu iman doono. waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.